السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal magacayguna waa Salma kuna soo dhawaada sheekada qaybteedii labaad waxayna noo joogtay hooyadii ayaa igu tir hadal aan ka caroodo deetar waa aan baxay oo qolkaygii ayaana galay dila ayaa ka soo wareegtay welina xaaladeenu isma bedelin walaalkayga aadam aad ayuu caayilay oo miisaankiisa waa u kordhay maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay isagoo aad u cunaya biitsaha anigoo walwalsan ayaan ku yidhi fadlan aadan iska jooji cunista biitsaha badan hadda marka ka sii dambayso xaaladaadu way sii bedelaysaa oo waad sii cayilaysaa waxayna kuu keenaysaa dhibaatooyin caafimaad markaas ayuu u yidhi aniga ma awood inaan iska joojiyo cunista biitsaha waayo aad ayaan u jeclahay hadalkii ayuuna joojiyey oo dhulka ayuuna ku dhacay oo waa uu suuxay anigoo naxsan ayaan ku yidhi fadlan aadan soo kac maxaa kugu dhacay hooyadayda ayaa qiiladeeda ku soo baxday weliba aydu ordayso markaas ayay tiri salma yaa allah maxaa ku dhacay wiilkayga markaas ayaan ku yidhi hooye ma aqaano oo sila ma filaana ayuu dhulka ugu dhacay markaas ayay igu tidhi ambalasta waa inaad wacdaa weliba sida ku dhaqsida badan ambalasti ayuuna waanay oo waa inoo timid isbitaalka ee si degdeg ah loola carray aadan anagana gaari ayaynu ka daba qaadanay oo aadan gadaashiis ayaynu soconay waxaynu gaarnay isbitaalka daqiiqada kadib dhakhtarka ayaa inoo yimid anigoo aad u baqanaya ayaan ku idhi dhakhtar walaalkayga siduu yahay maxaana ku dhacay asaga dhakhtarkii ayaa yidhi adiga hooyadiisa miyaad tahay hooyo ayaa ku tiri haa dhakhtar anigu waxaan ahay hooyadiisa ee wiilkayga ma fiican yahay maxaana ku dhacay dhakhtarkii ayaa lagu yidhi wiilkaaga xanuun ayuu leedu daran yahay cunto uu cuno ayuuna sababtaan ku noqday ee ma wuxuu cunay cunto aanan caafimaadka u fiicnayn hooyo ayaa tiri maya wiilkayga cuntaan caafimaadka u fiicnayn ma cuni jirin markaas ayaan ku yidhi haa dhakhtar isaga haddii jeer wuxuu cunan jira biitso weliba 3 waqti weliba muddo dheer ayaana ka soo wareegtay cunista biitsada intaas uu cuni jiray dhakhtarkii ayaa yidhi haa middan waan bafilayay biitsada waxaa ka buuxa dufan aad u fara badan qofkan wuu ku ciilayaa oo miisaankiisa ayaana kordhayo waxayna u keeni kartaa halis caafimaad adigana sideebaad ugu ogolaatay wiilkaaga inuu maalin kasta uu cuno biitse hooyadeedii intay isku yara naxday ayay tidhi dhakhtar aniga midaanan maanan ogeyn waxaan ahay qof shaqeeyo oo mashquulkeedu saa'id yahay habeenkiina xilli dambe ayaan imaan jiray dhakhtarkii ayaa yidhi hadduuba xaalkaagu sidaas yahay waxay u muuqataa ilmahaaga inaad dayacday gar walban waxaa lagaaga baahan yahay ilmahaaga xaaladood inaad la socotad iyo cuntada i cunayaan dhakhtarkiina waa uu baxay anigoo xanaaqsan ayaan hooyaday ku idhi hooye weli ma beenta ayaad sii wadaa waxa dhacayana adiga ayaa u sabab ah hooye mid aha iloobin aadan hadday wax ku dhacaan lagama yaaba nig inaan ku cafiyo si lama filaana isbitaalka waxaa u yimid aabahayga markaas ayuu yidhi yaa allah wiilkayga aadan maxaa ku dhacay hadda miyuu fiican yahay xaaladiisa iga warrama markaas ayaan ku yidhi aabba halka adiga sideebaad ku timid markaas ayuu gu yidhi adinka dartiin ayaan halkan u imid markaan guriga tegayna waa idinka waayey dariskii markii aan weydiiyeen waxay ii sheegeen ambalas in aadan lagu qaaday oo isbitaal si degdeg ah loola cararay anigana halkaas si degdeg ayaan ku imaaday aabahayga ayaan isku duubay oo habsiiyey hooyadeeda oo keelidaysa ayaa tiri oo hadda miyaad soo xasuustay in adiga aad carruur leedahay aabahayga hooyaday hadalladeeda wuu iska indhatiray markaas ayuu ugu yidhi salma gabadhayda ii sheeg waxa dhacay aadanna maxaa ka qaldan maxaana ku dhacay wiilkayga intaanan aniga aanan hadlin hooyadeed oo xanaaqsan ayaa tidhi adiga maxaa kaa galid tanna dhibaatadaada ma ahan halkan adigu waa inaad iskaga tagtaa markaas ayaa ku yidhi hooye igu filan adiga xadkaaga waa soo dhaaftay wax kastana waa aad karabtay si caral hayeen ii eegtay oo ilamaysan hadlin markaas ayuu u yidhi walaalkaaga maxaa ku dhacay bal wax ii sheeg anigana wax walba waan u sheegay siday wax u dhaceen markii aan sheekada dhameeyey aabbaye ayaa hooyadayda ku yidhi adiga weli isma aadan bedelin oo sidii aniga aan kaaga tegay ayaana tahay arnaba aniga kama aanan filaynin inaa carruurtaada sidaa adiga aad ku samaynaysid tanina waa qaladkayga aadanna waxa ku dhacaya adiga ayaa u sabab ah hooya ayaa tidhi oo hadda aniga ma waxaa noqday naag xun aniga carruurteydaba haba yaraatay kama aanan fogaanin oo magaalo kalena kama aanan aadin aabba ayaa yidhi isku day hadal wanaagsan inaad ku hadashid waxaad samaysayna waa qalad weyn aan marnaba aan laafin karin lagama yaabo mar damba inaan kugu aamino carruurtayda aadan hadduu soo caafimaadana halkan waan ka kaxaysanayaa oo magaalo kale ayaan aadayaa hooyo ayaa tiri lagama yaaba taas inaan ogolaado kuwaani waa aniga carruurtayda mana ogolaanayo magaalo kale in layga kaxaysto aabba ayaa yidhi riyo ayaad ku jirta riyada ka kac lagama yaabo mar kale carruurta halka inaaga tago haddana aadan ayaan soo fiirinayaa ina yaabana waxaynu soo galnay qolka aadanna sariirtiisa ayuu dul jiifay oo daal fara badan ayaa ka muuqday aadan markuu aabba arkayna waa uu ooyey isagoo oonaya ayuu yidhi aabba ma adiga markaas ayuu ku yidhi haa wiilkayga waxba ha walwalin adigana waad caafimaadi doontaa lagamana yaabo mar kale adiga in aan kaa tago kadib dhakhtarka ayaa soo galay wuxuu la yaabay joogitaanka aabba ayaana ku yidhi dhakhtar soo dhawow aniga waxaan ahay aadan aabbihiisa ee wiilkayga caafimaadkiisa iga waran hadda siduu wuu yahay
dhakhtarkii ayaa yidhi hadda siga aad ayuu u fiican yahay wuxuuna u baahan yahay daryeel gaar ah iyo cunto caafimaad leh sidoo kale daawadiisa waa inuu wakhti ku qaataa iyo jimicsi joogto ah siduu jirkiisa miisaankiis uu u lumiyo aabba ayaa yidhi waayahay dhakhtar waxaasoo idil weynu samayn doonaa waa inaad inoo qortaa tilmaamaha iyo waxyaalaha annaga nooga baahan yahay sidoo kalena daawada waa ina inoo qortaa dhakhtarkii ayaa yidhi waayahay laakiin isbitaalku wuxuu ku sii jiri doonaa 2 maalmood si annaga caafimaadkiis aan u hubinno dhakhtarkii wuxuu qoray daawooyinkii iyo tilmaamihii uu raaci lahaa aadan iyo cuntooyinkii qaadan lahaa intuu ka soo caafimaadayo iyo jimicsigii uu samayn lahaa 2 maalin waa ay dhammaatay maantan aadan isbitaalka ayuu ka soo baxay aabba ayaana hooyo ku yidhi u laaban maayaan carruurtayda adiga gurigaaga aniga ayayna ila safraayaan oo waa i raacayaan hooyo ayaa tidhi fadlan sidaan ha iu samaynin tani ma dhici karto ayaga la'aantooda aniga ma noolaan kari carruurtayda hay ka kaxaysanin aabba ayaa ku yidhi markii horeba ayaga soo kulama aysan joogin bal arag aadan xaaladdiisa siday u xumaatay carruurtaydina waa aad diyacday oo dan ii heelan adiga kama aadan lahayn marka maba istaashidba carruur inaan kaaga tagto oo halkan anigu waa ka kaxaysaneen markaas ayay tidhi waxyaalihii hore lagama yaabo qal in aan sameeyo tanna aniga waan ka shalaynayaa ee fadlan carruurtayda ha iga qaadanin markaas ayuu ku yidhi arrintu sidaas uga fududa marka hore adiga waa inaad ii caddaysaa in aad noloshaan sida aad ka batishid markaas ayay ku tidhi kuma aanan fahmin oo maxaad kala jeedaa markaas ayuu ku yidhi carruurtayda aniga ayaa kaxaysana ay ila joogayaan ilaa adiga aad sidaa iska badishid noloshaadan aad ku samaysay isbeddel weyn oo sidan aad ka soo hugnaatid haye carruurtayda inakeena waynu baxanaaye hooyadii waxay bilowday inay uyso ayadoo dhahayso carruurtaydii ila jooga aniga ha iga teganina anigana aad ayaan u murugooday ka tegista hooyo waynu baxnay oo magaalo kale ayaynu u safarnay aabbahaynana si wanaagsan ayuu inoo daryeelaa wuxuuna inoo suubiyaa cunto caafimaad leh aadanna maalinba maalinta ka dambaysa caafimaadkiis wuu soo hagaagayay wuxuuna bilaabay jimicsi si uu miisaankiis u lumiyo waxaa ka soo wareegtay 2 bilood maalmaha ka mid anigoo qolkayga ku jira waxaa ii soo galay aadan wejigiisana farxad saa'id ayaa ka muuqatay markaas ayuu yidhi abbaa fiiri aniga dharkaygu way la ekaadeen oo hadda aad ayaan u faraxsanahay markaas ayaan ku yidhi haa walaal waan u jeedaa waa ilaahay mahadiisa haddana sidii hore waad ka fiican tahay wax yar ayaana ku dhiman aadan ayaa yidhi marka hore allihii uuntay ayaa mahad iska leh kadibna aabbahiga inkastoo markii hore aabbahii annaga uu naga tegay uuna dayacay haddana waan iska cafiyey markaas ayaan ku yidhi haa anigana sidoo kale waan iska cafiyey hooyadeeda aad ayaan ugu xiisay laakiin waan ognahay inay qalad samaysay waxaana rajaynaya inay qaladkeeda garatay aadan ayaa yidhi haa aabbaay anigana saa'id ayaan ugu xiisay waxaana jeclaanaa inaan ayada arko waxaynu maqalnay aabbahan codkiisa oo noo dhawaaqayo isaga oo leh salmaa aadam qadadii waa diyaar ee soo baxa qolka ayaanu ka soo baxnay oo miiskii cuntada ayaanu nimaanay markaas ayaan idhi aabbo cuntada lagama sheekayn karo carafteedana waa saa'id aadna way u macaan tahay aabba ayaa yidhi sida idinkaad ogtihiin markii hore aniga cunto karisa kuma aanan wanaagsanayn laakiin hadda waa aan bartay si aan idinkugu diyaariyo cunto caafimaad leh markaas ayaa ku yidhi aabba aad ayaad u mahadsan tahay run ahaanta aniga aad ayaan kuu jeclahay markaas ayuu ugu yidhi anigana aad ayaan idiin jeclahay carruurtayda maalmo ayaa ka soo wareegtay aadanna miisaankiisa aad ayuu isku dhimay oo wuxuu noqday mid xaata ah caafimaadkiisana aad ayuu u fiicnaaday maalin annagoo fadhino oo tiifiga daawanayno albaabka ayaaba soo gargaraacay aabba ayaa aaday siduu u soo furo daqiiqad kadibna hooyo ayaana gudaha guriga u soo gashay anigana waa aan la yaabay aabba ayaa yidhi miyayna soo dhowaynayn hooyadiin intaan ku orodnay ayaana isku duubnay kadibna oohin ayayna bilowday markaas ayay tidhi iga raali noqday ilmahayga anigana qaladaad fara badan ayaa idinka galay oo marnaba aan la cafin karin run ahaantii aniga aad ayaan idinkugu xiisay carruurtayda markaas ayaan ku yidhi hooyo anigana sidoo kale aad ayaan kugu xiisay aadan ayaa yidhi hooyo anigana sidoo kale aad ayaan kugu xiisay maqnaashahaagana waa aan tabay hooyo ayaa nagu tidhi iska kay cafiy wixii aan idinku sameeyey midaana waan ka qoomameynayaa midaana cashar ayay ii ahayd mar kalena u laaban maayo qaladkii hore aan u sameeyey oo kale aadan ayaa yidhi oo sideed ku ogaata hooy meesha annaga aynu joogno aabba ayaa yidhi in muddo ayaan tijaabinayo hooyadiina waxaan ii caddaysay qaladka ee samaysay in ay ka qoomamaysay mar kalena aysan samayn doonin qaladkii hore sidoo kale waxaan maqlay maalin dhaweeta mar aa ninka aa wada hadlaysiin hooyadiina inaad u xisteen anigana waxaan go'aansaday hooyadiina inaan idiin keeno hooyo ayaa tidhi haa aniga waan ka qoomameyey wixii aad sameeyey mar dambena uma laaban doona hadda wixii ka dambeeya waxaan idiin samayn doonaa cunto caafimaad leh oo weliba wanaagsan aabbahayga ayaan isku duubay markaas ayaan ku idhi aabba aniga aad ayaan kuu jeclahay ilaahay ha ii kaadaysto aabba ayaa igu yidhi anigana sidoo kale aad ayaan kuu jeclahay gabadhayda waana ogaay inaad xiisaynaysid hooyada ina mar kale aad raacdi laakiin hal shardi ayaan wataa markaas ayaan ku yidhi aabba waa maxay shardiga
markaas ayuu igu yidhi hooyadiina haddii ay samayso qaladkii hore adiga waad ii soo sheegi doontaa mar walbana waan kula soo xiriiri doonaa si aan xaaladii u hubiyo aadan ayaa yidhi waa yahay aabbo amarkaaga ayaana jiro hooyo ayaa tidhi aad ayaad u mahadsan tahay haddana waynu baxeenaa qolkaygii ayaan aaday oo dharkaygii boorsada ayaan ku aruursaday weliba aniga oo faraxsan aabbahiina soo macasalaameeyey oo waxaan u laabanay guriga hooyadiida tan iyo maalinkaas laga bilaabo hooyadiida aad ayay isku beddeshay aabbaheenana mar walbuuna soo xiriiriyaa si uu xaaladeen ula socdo asxaabtayda quruxda badan halkaan ayay sheekadeyda ku dhammaatay waxaan rajeynaya inaad sheekadeyda aad ka hesheen fadlan muuqaalka hadduu ku soo gaaray like inoo saar sabskaraabkan ha naga ilaawin mahadsane